بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد ugu horeyn dhammaan walaalihii tartanka quraanka kariimka 20 juz oo ka qayb galay waan u mahad celinaynaa shirkadda oo Muqdisho company oo korontada oo taabagelineysay barnaamijkan ayna abaal marin doonto waan u mahad celinaynaa waxaan rabaa inaan halkaan ka dhawaajino ayada waqtiga iska yar yahay waxaan ka dhawaajinaynaa ardadii kaalmaha sare galay iyo dhammaan ardada darajooyinka buundooyinka ay keensadeen marka idaacadda mustaqbalna ay baahinayso aniga iyo macallin Ciise aniga Siid Cali Ibraahima iyo macallin Ciise aan guddigii garsoorka ama guddigii imtixaanka saxaynahay waxaan isla soo garanay natiijadii ardada ay keensadeen in maanta aan shaacino ardada mumtaaska ah guud ahaan waxaan halkaan ku mulaaxdaynaa ardada imtixaanka gashay oo dhan wax dhacay ma jiraan oo quraanka Ilaahay ku tartamay oo dhacay ma jiro dhammaantoodii waxaa la dhihi karaa ardo oo mutafawwiqiin ah oo aan kala liidanin marka daradeedii hadii laba dhagax la isku dhufto mid baa jabaya dhahan dad haday dadaalaan mid buu sareynaya ardadii xoogaa islahanay ardaygaana sareeyay bal hal dhiirigeliyo aan islahanay baan insha Allah taala ku dhawaajin doona insha Allah Muqdisho company oo taabagelineysay 20 juz ardayga kaalinta koowaad galay aan u sheegi doono ama asigna u sheegi doono codkiisa insha Allah aad maqli doontaan waa Cabdisalaan Xuseen Yuusuf oo ka socda madrasada Abdullah ibn Mas'ud wuxuu keensaday 98 buundo waa mumtaaz murtafic waa kaalinta koowaad ardayga ka galay 20 juz إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما أرديك اللبات كالنت اللبات ترتمياش 20 جزء وحا كالنت اللبات قلي أردي لغوما عاو بشير محمود أحمد oo ka socda madrasada al-Haramayn wuxuu keensaday 97 buunda ayuu keensaday waa mumtaaz kaalinta labaad ayuu galay wa alla ta'lu 'ala Allah inni atikum bisultanin mubin wa inni 'udhtu bi rabbi wa rabbikum an tarjumun وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون كالنت سدحاد waxaa galay ardayada lagu magacaabo Salma Xasan Absuge oo ka socota madrasada Nuurul Islaam waxay keensatay 96.5 ayay keensatay 96.5 ayay keensatay waa mumtaaz waa kaalinta saddexdaas arday Muqdisho company waxay ugu talgashay inay ku abaalmariso biidinlaahi tacaala waxaan isla sugaynaa maalinta xafladda biidinlaahi tacaala waxaan ka codsanaynaa ardadaas inay soo xaadiraan idaacadda mustaqbal maalinka xafladda si gooni waa loo soo wici doonaa biidinlaahi tacaala ardada ku xigta ayaan iska sii fududeynayaa si kaalimahoodii si isku xigaan baan u sheegi doonaa kaalinta afraad Abdurrahmaan Aadan Maxamed oo ka socda Umar ibn Khattab wuxuu keensaday 96 arday ku xiga Luqmaan Abdullaahi Maxamuud wuxuu ka socda madrasatul iimaan wuxuu keensaday 96 ardayda ku xigta Ruwayda Maxamed Maxamuud waxay keensatay 93 waxayna ka socotay al-ihsaan wiilka lagu magacaabo Abdul Xafiid Xuseen Cabdulle oo Macaisha ka socda wuxuu keensaday 91 arday ku xiga Cabdicaziis Shucayb Aadam wuxuu ka socda madrasatul Furqaan wuxuu keensaday 89.5 arday ku xiga Cabdiraxmaan Murshid Sheekh wuxuu keensaday Ar-Ribaad wuxuu ka socda andhahe Ar-Ribaad madrasada wuxuu keensaday 89 arday ku xiga waa Anas Abdulqaadir Nuur oo ka socda madrasatu al-Imaam Shaatibi darajadiisu waa 88.5 ardayda ku xigta Maryan Sheekh Aadam Macallin oo ka socda Imaam Muslim waxay keensatay 87 arday ku xiga waa Cabdul Baari Umar Abshir wuxuu ka socda Habrul Umma
wuxuu keensaday 86. arday ku xiga waa cali maxamed xasan oo ka socda daaru tawxiid wuxuu keensaday 85. ardayda ku xigta rawda cabdirasaaq maxamed oo ka socota jiilul mustaqbal waxay keensatay 84. arday ku xig waa axmed macalin abubakar oo ka socda luqmaanul xakiim wuxuu keensaday 70. arday ugu dambeeyey waa cabdisamed aadam iidow oo ka socda madrasatu nuurul cuyuun wuxuu keensaday 65. intaa waxaa nooga dhammaaday ardadii ku tartamaysay 20 juz oo taabagelinaysay muqdisho company oo markaas baahinaysay idaacadda mustaqbal wallahu subxaanahu wa tacaala aclam.